السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى وحو قدر إنسان والبسيط ودمان لها نينكي نولشي سدن أي تاي لهوي خاتمديس waxay ahaan doontaa wax laga xumaado qofkii noloshiisa dhan u gooyo daacada alle iyo cibaadada khaatimadiisa waxay ahaan doontaa mid wanaagsan oo sharfan laakiin amarka qariibka waa kan aan ku maqli doono qisada maanta sheekh muadin ah oo ku fitnoobay gabar aad u qurux badneed una soo jiiday khaatimo xumo aan wada dhageysanno haddaa ku cusubtahay afmaal studio fadlan subscribe dheh gambaleelkana furuse ay kuu soo gaaraan wax walbo cusub maalin maalmaha ka mid ah iyo beled ka mid ah buldaantii carabta muslimiintu deganeed waxaa jira sheekh aad u laasimi jiray masaajidaha caanka ah mid ka mid ah wuxuuna aadi jiray masaajidka shanta waqti ee salaada wuuna ka aadimi jiray salaadan wuu oogi jiray jamaacadana ma dhaafi jirin waxaana ka muuqatay nuurka daacada alle iyo inuu yahay ruux u dhow alle xaaladan ayuuna ku jiray sanooyin fara badan ilaa loo aqoonsaday inuu yahay ruux cibaado badan allana ku xiran maalin maalmaha ka mid ah waqtiga casirka wuxuu fuulay minaaradda si uu u aadimo minaaradda hoosteedana waxaa ku taalay daar u deganaa gaaladimi ahaa sheekha wuxuu fiiriyey daarta isagoo aan u qasdin ishiisa ayaa ku dhacday ninka gaalka ahaa gabadhiisa waxayna ahayd gabar aad u qurxoon wuu ku fidnoobay wuuna ka helay qalbigiisana ayada ayaa degtay isla markiiba aadaanka uu ka soo tegey wuxuuna soo aaday gurigeeda irid ayuuna soo gargaraacay markay ka furtay isla markiiba uu soo galay gabadha aad ayay ula yaabtay waxaa dhacay maxaa keeni kara gurigiinna sheekhaan idinkoo ah kirishtaan maxaa idinka dhexayn karo isla markiiba su-aal ayay weydiisay waxayna ku tiri waa maxay shaanigaaga maxaad doonaysaa wuxuu ku yidhi adiga ayaan ku rabaa wax kale ma doonayo waxay ku tiri sabab wuxuu ku yidhi caqligayga ayaad la tagtay qalbigaygana waa degtay way ka naxad gabadhii waxay ku tiri faaxisho inaan kula sameeyo ha ka yaabin wuxuu ku yidhi haddaba waan ku guursanayaa waxay ku tiri waxaa tahay muslim anigana waxaan ahay nasraaniyad aabbahina ima ka guurinayo sheekhii wuxuu hilmaamay masjidkii cibaadadii daacadii faraha badneed ee uu samaynayey sanadihii dheeraa wuxuuna ku yidhi haddaba waan gaaloobayaa oo diintiina ayaan gelayaa kadibna waan ku guursanayaa waxay ku tiri diintaada ma beddelaysaa si aad ii guursato wuxuu ku yidhi haa waan samaynayaa waxay ku dhahday hagaag haddaad diintayda soo gashay waan isguursanaynaa wuxuu aaday aabbaheed waana la siiyey sidii ayuuna ku guursaday wuxuuna la degay daartii ay deganaayeen ee deriska la ahayd masjidkii uu mu'adinka ka ahaa maalinkiisii guurka isagoo aan la seexan gabadhii ayaa wuxuu fuulay sadxiga daarta laakiin wuu ka dhacay wuuna dhintay diintiisii macaaneed iyo daacadii kuma uusan baaqi noqon gabadhii uu guursadayna lama uusan raaxaysan oo nasiib uma yeelan wuxuuna khasaaray adduun iyo aakhiro wuxuuna ku dhintay khaatimo xumo ilaahay ayaan ka magangelaynaa khaatimo xumo waxaa dhacday qiso lamid a qisadan xilligii futuuxaadka islaamka mid ka mid ah ciidamada muslimiinta oo lagu magacaabi jiray cubdata bnu cabdiraxiin wuxuu sheegay ibnuljawsi in cubda uu ahaa nin aad uga qaybgalay dagaaladii lala galay ruom kana mid ahaa raggii ugu adadkaa ciidanka muslimiinta wuxuuna ahaa ninkan xaafidul qur-aan mid ka mid a duulaamadii lagu qaaday ruom ciidamadu waxay hareereeyeen magaalo ka mid ah magaalooyinkii ruom oo derbi adag lahayd dhufaysna ay galeen gaaladii wuxuu fiiriyey cubda gabar aad u qurux badneed ee reer ruum ahayd caqligiisa ayay la tagtay isla markiiba wuuna jeclaaday wuxuu u qoray warqad wuxuuna ku dhahay qaabkeen kugu heli karaa waxay ku tiri haddaad soo gaalowdo oo diinteennaad soo gasho waan kuu sheegayaa qaabkaad iigu iman karto isla markiiba wuu gaaloobay dadkii uula joogayna wuu ka tegey waxay u fududaysay sidii uu ugu geli lahaa markii ay ogaadeen muslimiinta wixii uu sameeyey way ka argagaxeen wayna ka murgeen waxayna ku noqotay dhib weyn muddo kadib ayay ku soo mareen meel asagu joogo islaantii uu guursadayna ay la joogto waxay weydiiyeen dhowr su-aal waxay weydiiyeen qur-aankii jihaadkii soomkii salaadii cilmigii ka warramay dheen wuxuu yidhi waan hilmaamay qur-aankii oo dhan waxaan ka xasuustaa oo keliya rubamaa yawaddu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin darhum yaakuluu wayatamatacuu wayulhihim ilamal fasawfa yaclamuun haddana waxaan ii joogo oo ruumaan ku dhexaystaa awlaad iyo maal ilaahay khaatimada noo hagaajiyo walaal haddaa ka heshay qisadan laagsaar siina faafi mahadsanid